waxay ahayd maalin axad ah 3 bishii Oktoobar 1993 koox ka mid ahayd ciidamadii Mareykanka iyo helikabtaro dhowr ah oo ay wateen ayaa ka kacay xaruntii ciidamada militariga ee Mareykanka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. waxay ku baxeen kalsooni iyo dhiiranaan buuxda oo ay qabeen ciidamadii lagu magacaabay jiray Rangerska iyo Delta Force ayagoo takhasus ku ahaa dagaalada isla markaana qabay tababar gaar ah. 3 daqiiqo markii ay dulmarayeen bartamaha Muqdisho waxaa diyaaradahaasi lagu wargeliyay guri la doonayo in la bartilmaameedsado kaas oo loogu shaki qabay inuu ku jiray Generaal Maxamed Faarax Aydiid oo ay gacanta ku soo dhigaan ciidamadaasi. waxayna Mareykanku ku sheegeen in Generaal Maxamed Faarax Aydiid uu yahay carqalad hortaagan nabadda Soomaaliya. isku dayga qabashada Generaal Maxamed Faarax Aydiid waxaa gacan ka geysanayay qaar ka mid ah Soomaali la shaqeynaysay ciidamadii UNISOM. howlgalka inuu dhaco iyo waqti badan oo lagu falanqeeyo lama haysan, waxaa waqtiga la haystay oo kaliya uu ahaa 1 saac oo kaliya. Mareykanka waxay go'aan ku gaareen qaabkii loo soo qaban lahaa Generaal Maxamed Faarax Aydiid. madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Bill Clinton arrimaha dibadda ah ee kaga imaanaya dawladdiisa waxa ugu horeysay arrinta qabashada Generaal Maxamed Faarax Aydiid. waxaa bilowday howlgalkii la qorsheynayay ee qabashadii Generaal Maxamed Faarax Aydiid, laakiin ciidamada Mareykanka waxay arrintaasi ku qaadatay dagaal socday muddo dhan 17 saacadood waxayna galaafsadeen nolol badan oo dadka Soomaalida ah. markii ay dalbadeen ciidamo dheeri ah oo gurmad ah waxay halkaasi ku waayeen 18 ka mid ahaa askartoodii. in ka badan 70 askartoodii ka mid ahna si xun ayaa loo dhaawacay, dhulkana loogu jiiday meydadkooda. We went to Somalia to keep people from starving to death. Now we are killing women and children because they're combatants. It's got to stop. Mareykanka wuxuu Soomaaliya ku galay inuu dadka caawinayo, waxayna dadka Soomaaliyeed bilowgii u soo dhaweeyeen si aad u wanaagsan ayagoo qabay rajo nabad ah. Soomaaliya waa wadan qani ah, waxay daris la tahay dawladda Itoobiya oo ah dal faqiir ah, waxayna ku taallaa geeska Afrika. waxayna xurriyadda Soomaaliya qaadatay 1960kii waxaana gumaysan jiray Talyaaniga iyo Ingiriiska. 1969kii dawladdii rayidka ahayd waxaa xilka afgambi kala wareegay militariga Soomaaliya, waxayna Soomaaliya cagta saartay xukun kale talis ah oo hoggaanka u hayay Maxamed Siyaad Barre. Jaalla Siyaad Barre wuxuu durbaba faraha la galay inuu ishortaago xorriyatul qowlka iyo diinta Islaamka, taas oo isaga hor yimaadeen ururada u dooda xuquuqda aadanaha. waddanka markuu ka baxayna waxaa sii socday dagaalo faraha loogu gubtay oo u dhaxeeyay hogaamiye kooxeedyo kuwaasoo dagaalo hor leh ka abuuray dalka guud ahaanba. mid ka mid ahaa hogaamiyaalkii ay doondoonayeen Mareykanka oo ahaa Generaal Maxamed Faarax Aydiid oo ah nin ciidamadii dawladdii Siyaad Barre ee horey u xirtay in muddo ahna xabsi soo maray. Maxamed Siyaad wuxuu isaga baxay dalka 1991dii, kadibna waxaa laga dhaxlay biliqo, gaajo, dil aan macno lahayn. waxay Soomaaliya gashay abaartii ugu xumayd iyadoo dadka ay ku dhimanayeen wadooyinka. ayadoo taasi laga duulayo ay warbaahinta caalamka waxay dunida ka dalbadeen in la caawiyo ummadda Soomaaliyeed. isla markiiba qaramada midoobeed waxay xafiis ka furatay Muqdisho si dadka Soomaaliyeed raashin loo gaarsiiyo, kadibna waxaa bilowday in la qaybiyo raashinkaasi. laakiin dagaaladii dalka ka socday ayaa waxay ahaayeen kuwa aan dhamaad lahayn. aan u laabano xaruntii qaramada midoobeed. xogayaha guud qaramada midoobeed Butrus Qali ayaa wuxuu go'aan cad ku gaaray in la farageliyo xaaladda Soomaaliya ayadoo dadka ay u dhimanayaan si macno dara ah. bishii March 1992
waxay UN-ka ka dalbadeen hogaamiye kooxeedyadii in aysan is-hortaagin macaawinada dhanka daawada ah isla markaana ay ogolaadaan inay gawaarida UN-ka isaga kala gooshaan xuduudaha xilligaasi jiray. raashinka macaawinada ahaa keenistoodii waa ay sii siyaaday. bishii Julaay kooxo gaaraya 50 qof oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa waddanka yimid si ay u ogaadaan xaaladda raashin qaybinta iyo hanaanka ay u socotay. waxaase u soo baxay in Soomaaliya gabi ahaanteedba ay u baahan tahay in xal kale loo raadiyo, ayagoo hogaamiye kooxeedyadiina ay dalbadeen in raashinkaasi qaybintiisa lagu soo wareejiyo ayaga. waxaana durba bilowday bililqaysi raashinkii macaawinada ahaa iyo in la afduubta gawaaridii raashinka saarnaa guud ahaanba. arrintaasi waxay qaramada midoobeed ku noqotay carqalad cusub, sida ay dadka raashinka ku gaarsiin lahaayeenna ay tahay mid aad u adag gabi ahaanba. waxaana la dalbay codsiyo dheeri ah si xaaladda ka sii daraysa wax loogu qabto. qaramada midoobeed waxay xubnaha UN-ka ka dalbadeen in ciidamo militari ah loo diro dalka Soomaaliya, kuwaas oo caawiya hay-adaha qaramada midoobeed. waxaana Soomaaliya loo soo diray ciidamo qaramada midoobeed ka socda. laakiin George Bush oo madaxtinimadiisii ka harsanayd isbuucyo kaliya ayaa isagana aaminsanaa inuu Mareykanka qayb ka qaadan karo howlaha ka socda Soomaaliya. 9 bishii December 1992 kooxo ka mid ahaa ciidamadii Mareyniska ee Mareykanka ayaa Soomaaliya dhanka badda ah ka soo galay, waxaana soo hormaray 25,000 oo ciidamadaasi ka mid ahaa si ay ula wareegaan hoggaanka dalka, isla markaana ay dib u soo celiyaan rajadii iyo nabaddii iyo kala dambayntii. waxaana howlgalkaasi loogu magacdaray howlgalkii rajo soo celinta. maalmo gaaban kadib waxaa Soomaaliya booqday George Bush si uu u hubiyo heerka ay marayso howlgalkii ciidamadiisii ay fulinayeen iyo sida ay dadka u gaarto macaawinada, wuxuuna dhiirigelin ku sameeyey ciidamadiisa. Been one or two people over there suggesting that maybe we have done something that we ought not to do, but when you see what you have seen and what I saw today, I'm absolutely convinced that we've done the right thing. Bush wuxuu diradda saaray in Soomaaliya dib loogu soo celiyo kala dambeyntii, wuxuuna sheegay inuu ku dadaalayo inta uusan xilka ka degin sanadka 1993 in Soomaaliya xaaladdeeda la dejiyo. inkastoo Bush uu qiray in xaaladda Soomaaliya ilaa ay xad ay soo laabatay, rajo wanaagsanna ay dadka soo gashay. sidaas oo kale Bill Clinton waxa uu bilowgii qiray in Soomaaliya xaaladdeeda ay wanaagsan tahay. ciidamadii Mareykanka weli Soomaaliya ayay ku sugnaayeen markii uu xafiiska la wareegayay madaxweyne Bill Clinton bishii Janaayo 1993. dadka reer Muqdisho waxay la qabsadeen diyaaradaha dagaalka ee dul hayhaabaya habeen iyo maalinba dushooda. horaantii bishii May, Bill Clinton wuxuu gacanta dib ugu geliyay qaramada midoobeed hoggaankii nabad ilaalinta ee Soomaaliya, laakiin arrintaasi waxaa ka hor yimid hogaamiye kooxeedkii Generaal Maxamed Faarax Aydiid, isagoo codsaday in dalka howshiisii gacanta isaga loo geliyo. ciidamadii qaramada midoobeed waxay bilaabeen inay kala wareegaan ciidamadii Mareykanka ahaa meelihii ay ku howlgeli jireen. bilowgii Juun, madaxweynihii Mareykanka wuxuu ciidankii Mareykanka ka dhimay 1,200 oo ciidamo ah iyo 3,000 oo ciidamadaasi saacidi jiray oo shaqaale ahaa. wuxuuna Mareykanka diyaar u ahaa inuu la hadlo Generaal Maxamed Faarax Aydiid iyo taageerayaashiisa. 5 Juun, taageerayaashii Aydiid ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen fal aad u foolxun, waxayna si gaadma ah ku dileen 24 ka tirsan ciidamadii qaramada midoobeed oo Bakistaaniyiin ahaa, kuwaas oo dalka u yimid nabad ilaalin. ciidamadii qaramada midoobeed waxay bilaabeen in ay baadigoob u galaan soo qabashadii Generaal Maxamed Faarax Aydiid. waxayna xitaa madaxiisa dul dhigeen $25,000. baadigoobkii waa uu daba dheeraaday, waxayna noqotay mid aanan sahlanayn, waxaana u dhintay arrintaasi darteed kumanaan ciidankii UN-ka ka tirsanaa. waxaa sidaasoo kale dhintay kumanaan Soomaali ah oo aan waxba galabsan. laakiin arrintaasi Mareykanka waxba uma arkin, kamana weecan cawaaqibta ay u keeni karto arrintaasi. waxayna go'aan ku gaareen
qabashadii jenaraal maxamed faarax caydiid nolol ama geeri waxayna taasi u ahayd yoolkooda koowaad inay soo qabtaan waxay arrintaasi ku hoggaamisay qaladaad badan oo cawaaqib xumo ah ku riday 12 Julaay diyaaradihii helikabtarka Mareykanka ayaa waxa ay weerareen guri ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho ayagoo si qalad ah loo wargeliyay inuu jenaraal maxamed faarax caydiid ku dhuumaaleysanayo halkaasi waxayna halkaasi ku laayeen qaar ka mid ah taageerayaashii caydiid waxayna Mareykanka arrintaasi ku noqotay cawaaqib iyo mid ay ceeb kala kulmaan دعوة هولغلك هادو كوغو دعاي كل كارورية يا هاي isla markaas ayagoo soo galay dhinaca dalkan Madiina iyo bankiga dhiigga iyo meeshaas ay soo galeen weerarkii ay soo qaadeen halkaas rasaastii ay ka bilaabeen annagu waa argagaxnay meelna lagu yimi aqoon weyne dadka dhaawacay waxaana rasaastii wixii dhamma ku wada dhacayaan gareelayaal waxaan la soo oranay alaabtii aan ku gurleen oo markaas aan hoos ugu dejinay isla markaa waa gur weyne dadkii yoolkii ayaa nagu batay dadkii wax dhintay iyo wax dhaawaca iyo wax rafaadsan iyo waxaan la cararnay ayay kala noqdeen ayaguna sida ilaahay markii waxay nagu garaacayeen waxaan aan magacyadooda laguma kala naqaano kulley madaadiic waaweyn diyaarad leh qub gacmeed leh wax walba leh ayay nagu garaacayeen meeshaana isbitaal waaye isbitaalka u dhow oo dadka garaawa soo gala dadkii bankiga waa la tageen waxna waa dileen dad caadi oo guryaha ugu soo galeen maata iyo nimanna jijiifo qaaqaawan dalkooda aad u qabinin iyo oo wax u ogay ay weerar ku soo qaadeen ahaayeen iyo wixii qaxootiga deganaa masaakiinta laba isbitaal dhexdooda ku noolaa isbitaalka wax dagaal oo asaga laga qaaday wax laga qaada mal waa la hurdaayay markaas wax ogaayay ma jirin wax hub haysto isbitaal meesha looguma talagelin hub in lagu isticmaalo saasna la igu riday tan oo weeyay kana ugu yar kuwaas ugu yar kuwana la kula dagaalay isla markaas anagu magacyadooda ma kala diyaarad iyo gacan iyo wax kasta meel kasta inoo soo daa waa argagaxnimo meel aan socon meel kale la garan
4 ka mid ah wariyaal ka socday reer galbeedka oo doonayay inay baaraan waxa halkaasi ka dhacay ayaa caro darteed iyagana loo diray. Generaal Caydiid wuxuu taageerayaalkiisa iyo shacbiga Soomaaliyeed ku wargeliyay inay is hortaagaan weerarada iyo duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay geysanayaan, inkastoo Soomaali badan ay aad uga caroodeen laynta dadka maatida ah oo aan waxba galabsan. Diyaaradihii dagaalka Mareykanka waxa ay weerareen meelo badan oo islahayeen waa uu ku dhumaalaysan karay Generaal Maxamed Faarax Caydiid, laakiin nasiib daro ma aysan helin. ciidankii Mareykanka waxay isaga noqdeen xarumahoodii. waxayna mar kale sirdoonkii Mareykanka isku sheegeen in Generaal Maxamed Faarax Caydiid uu ku sugan yahay guri ku dhow Hotel Olympic oo ku yaala meel aad u mashquul badan ee suuqa Bakaaraha ah. sida ay sheegeen ciidamada Mareykanka waxay iska lumiyeen fursado badan. wuxuu Generaal William F. Garrison oo ahaa hogaamiyihii ciidamada Mareyniska ee Mareykanka ee dalka ku sugnaa uu mar kale ciidamadiisa amray soo qabashada Generaal Caydiid. saacadu waa 3:40 daqiiqo xilli ay galab tahay bishuna ku beegnayd 3 Oktoobar. 8 helikabtar oo loo yaqaano MA-60 Black Hawk iyo 8 helikabtar oo kuwa shimbiraha loo yaqaano ayaa ka kacay xaruntii ciidamada Mareykanka ayagoo u dhaqaajiyay bartamaha magaalada Muqdisho. qorshuhu wuxuu ahaa hotel ku yaala magaalada Muqdisho, halkaasi oo loogu shaki qabay in Generaal Maxamed Faarax Caydiid iyo taageerayaashiisii ay ku kulansan yihiin. diyaaradihii markii ay dultageen waxay ku bilaabeen duqeyn culus. ciidamadii Rangerska waxay u degeen dhulka hoose ayagoo adeegsanaya gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo noocyo kala duwan ee rasaasta ka dhaca qoryaha yaryar. waxayse halkaasi ciidamada Mareykanka kala kulmeen dagaalyahanadii Caydiid oo dhammaantoodii qoryo sitay, kuwaasi oo iska caabin sameeyey. waxaase halkaasi Mareykanka kaga daatay dhiig aad u fara badan, ayagoo welibana sheegay in dagaalka xitaa ay ku jireen dumar iyo carruur Soomaaliyeed. Caydiid iyo taageerayaashiisa waxa ay diiradda saareen ama ay ahmiyadda siinayeen sida ay dhulka u soo dhigi lahaayeen diyaaradihii helikabtarka ahaa ayagoo adeegsanayay sawaariikh. mid ka mid ahaa duuliyaashii Black Hawk oo lagu magacaabo Elvis Walcott oo ka tirsanaa guutada loo yaqaano Super 61 kana soo qayb qaatay dagaaladii gacanka Carbeed ee 1991 ayaa si kadis ah ku soo wargeliyay xaruntii dhexe ee ciidamadii Mareykanka in diyaaradiisa ay la heleen taageerayaashii Caydiid gantaal, isagoo durbadiiba ku dhacay dhulka wuxuuna ku dhintay isla halkaasi. ciidamo ka mid ahaa Rangerska ayaa isku dayay inay soo aadaan dhankii ay diyaaradda ku burburtay, laakiin waxay u soo dhowaan kari waayeen Rangerskii Mareykanka qoriga AK-47 oo ay siteen taageerayaashii Caydiid. ciidankii Caydiidna waxay daqiiqadba daqiiqadii ka dambaysay u soo kordhayeen ayagoo guuta ah, waxaana meesha ku daatay dhiig aan tirakoob lahayn. Caydiid iyo taageerayaashiisii waxay aad ugu faraxsanaayeen inay jab culus u geysteen dowladdii caalamka ugu tunka weyneed. taana waxaa caddayn u ahayd in diyaaraddii Black Hawk ay dhulka ku burburtay. laakiin ciidankii Mareykanka waxay durbadiiba codsadeen gurmad degdeg ah si ay ugu samatabaxaan iyagoo nool halkaasi. xaaladdana waxay noqotay si aan la filayn iyo si ka sii xun oo allow ifaksa ah. gawaaridii qaramada midoobeed ayaa la gubay, khatartana waxay u sii kordhaysay marba marka ka sii dambayso si halis ah. meydadkii ciidamadii Mareykanka ayaa la jir dilay ayagoo kaamirooyinka caalamka ay daawanayaan, qaar kalena dhulka lagu jiiday meydadkoodii. ciidankii Mareykanka in ay waayaan Black Hawk waxay u ahayd wax ay ka argagaxaan, laakiin mar kale waxaa dhacay arrin aysan filayn. diyaarad kale oo Black Hawk ah oo ka tirsanayd guutada Super 64
oo uu duuliye ka ahaa Michael Durant ayaa diyaaraddii kontaroolka weysay isla markaana dhulka ku dhacday. Mr. Durant wuxuu isku dayay inuu ka baxsado halkii ay diyaaradda ku dhacday isagoo ka cararaya taageerayaashii Generaal Maxamed Faarax Aydiid inay gacanta ku dhigaan, inkastoo aakhirkiina la qabtay isaga oo nool. laakiin diyaaradihii dagaalka Maraykanka marna ma aysan joojin duqaymihii ay ku hayeen hotelkii Olympic iyo wax waliba oo ka agdhowaa halkaasi. ciidankii Maraykanka waxa ay soo gaaray gurmad beeri ah, waxayna soo gaareen xilli habeen ah ayagoo isticmaalaya diyaaradaha helikabtarka ee loo yaqaano shimbiraha, ayagoo isku dayay inay askartoodii ka samata bixiyaan. kuwii badbaaday oo askarta ka mid ahaa waxay ku dhumaalaysanayeen meelaha mugdiga ah oo madaafiicdu ay haleeshay. ciidamadii Maraykanka waxa ay galeen dagaal socday 17 saacadood, taas oo weligood aysan arkin sida uu u kululaa. ciidamadii ka badbaaday dagaalkaasi waxay iyagana aad uga cabsi qabeen inay xarumahoodii si nabad ah ay ku gaari doonaan iyo in kalaba, ayagoo maskaxda ku hayay in ay waddada ku sugayaan rag sita taangiyo, qoryaha dhabarka la saarto iyo weliba jiibab. waxaase ciidamadii badbaaday ee Maraykanka lagu wargeliyey sidii ay ku soo gaari lahaayeen falkeeda ay galaan golankii Stadium Muqdisho. waxayna ciidamadii Maraykanka Stadium Muqdisho xilligaasi u ahayd meel ay ku sii daaweystaan dhaawacoodii, ayagoo lagu daadgureynayay helikabtaro si ay ugu laabtaan airportkii Muqdisho oo u ahayd xaruntii Maraykanka. kii Black Hawk Michael Durant waxaa la soo daayay 11 cisho kadib markii madaxweynaha Maraykanka Bill Clinton uu codsaday in askarigaasi xorriyadiisa uu helo. markaana madaxweynihii Maraykanka waa uu quustay, wuxuuna indhihiisa saaray ciidamo Maraykanka oo dhulka lagu jiidayo meydadkoodii, wuxuuna ka quustay xaaladda Soomaaliya, isla markaana ciidankiisa amray inay ka soo baxaan Soomaaliya. intaasi kadib arrintu way isbedeshay, waxaa iscasilay wasiirkii difaaca Maraykanka Les Espin. It's time for me to take a break and to undertake a new kind of work. waxaa sidaas oo kale sameeyey General Garrison oo isaga xilka isaga tagay. 25 bishii March 1994 guutadii ugu dambeysay ayaa isaga huleelay Soomaaliya, waxayna raaceen Qaramada Midoobeed ayagoo faaruujinayay xarumihii ay deganaayeen. dadkii Soomaaliyeed ee ka tirsanaa Qaramada Midoobeed waxay isaga laabteen goboladoodii. Aydiidna wuxuu uu sii waday dagaaladii ay isaga hor imaan jireen hogaami kooxeedadii. 3 sano kadibna wuxuu ku dhintay dagaal uu isaga hoggaanka u hayay. George Bush oo mar la weydiiyey sida uu u arko xaaladda Soomaaliya wuxuu uu sheegay inay xaaladdu u muuqato sida dagaalkii gacanka ee Ciraaq 1991, laakiin uu sheegay in xaaladda Soomaaliya ay ka kulashahay. afti la qaaday xilligii ay baxayeen UN-ka waxay Soomaalidu dib u codsadeen in la soo celiyo howlgalkii Qaramada Midoobeed ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay xilligaasi gashay xaalad kale oo halis ah.